rabaa saddex qodob inaan ka hadlaan rabaa saddex qodob oo kaliya inaan ka hadlaan rabaa insha Allah biidnillahi alkariim. kow, ciidamada Itoobiya doorkooda. labo, qaswadayaasha koonfur galbeed ee ku sugan magaalada Burhakaba iyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee Haramcadka iyo Gorgorka iyo wax la sheegayo iyo shacbiga reer koonfur galbeed sidoo kale dardaaran reer koonfur galbeed aan la dardaarmayo. saddexda qodob insha Allah ka hadli doonaa. kow, ciidamada dowladda Itoobiya ay saaxiib ka yihiin dowladda koonfur galbeed ayaa isku ballaariyay gabi ahaanba wadooyinka laga soo gala magaalada Baydhabo ayagoo dhigtay halkaasi hub aad iyo aad u culus sida taangiyada, sugaga, beebayada iyo lidka diyaaradaha. ciidamo aad iyo aad u fara badan oo Itoobiyaan ah halka dhufays ku qotay waxayna u diyaar garoobeen kooxaha qaswadayaasha ee duulaanka ku soo ah magaalada Baydhabo. haddaba qaswadayaasha hayhata lima tuucaduun hayhata lima tuucaduun idin suurtageli mayso dadka ugu liito in dadkoodii loo soo fuulo oo loo soo adeegsado oo qaarkood ay ku suntan yihiin horgalnimo oo ay factirsadeen inay koonfur galbeed dowladdeedii iyo shacbigoodii ka dhigaan magan xasan sheekh maxamuud iyo fiqi ma dhacayso. waxaan leeyahay arrintaas waa riyooteen, carruur yaryar ayaa tihiin, shala dhalateen waa la shubi jiray, dalkan waxbaa loo soo maray, waxa la isku haystana garan maysaan, adigu cabdicasiisaan idiin muuqdo, laakiin waxaa la isku haystaa meeshan reer koonfur galbeed 6 gobol bay ahayn, 3 baan ka cunay, 3dii hal baan ka cunayaa, labada soo hartana magan xasan sheekh maxamuud ama magan abgaal cismaan inay noqdaan baa loogu talagalay. adigu laakiin ma fahansanidin, markaad fahantaan Allah la gaarsiiyo. reer koonfur galbeed way ku filan yihiin difaacida dadkooda iyo degaankooda, way ku filan yihiin, waana dad wax fahansan oo garanayo meesha ay maanta xisaabtu marayso, dad fahansan way. ayaga intaasaan kaga gudbayaa. waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciidamada Gorgor iyo Haramcad ee la soo diray. bal dib u milicsada wixii ka raacay magaalada Raas Kamboni oo waliba aad kula dagaalanteen hal nin. waxaa la idin tababaray oo saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya idin tababareen inaad la dagaalantaan argagixiso, inaad ku duushaan shacbi Soomaaliyeed lima tababarin, waana midda idin jabanayso. waxaa maanta idin soo amrayo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday lagana kala tegay oo keligiis ah. dhalinyaradii caqliga lahayd waa diideen, saraakiishii ciidanka waa diideen. maanta ciidamadaas Haramcadka waxa horkacaya iyo Gorgorka waxa horkacaya ciidanka qaaska ah ee gaarka Xasan waa 2 nin waa nin u dhashay beesha Mareexaan oo lagu magacaabo Saahid oo ah taliyaha guutada qaybta Gorgor. waxaan leenahay arrinka ka waantow oo isu dhiib ciidamada koonfur galbeed, dhammaan dableyda alifleyda isu dhiiba ciidamada koonfur galbeed odagoo 48 cisho u harsan. inaad dad Soomaaliyeed oo dadkii lagu soo tababaray ee aad u soo dhaaratay inaad xabad ku riddo waxaa ka wanaagsan oo maanta taariikhdooda xusaysaa, waadna samaynaysaan xiriirna waa in la samayn ilaa xalay. isdhiiba u gala dowladda koonfur galbeed, dalka si kumeel gaar ah meeshii nidaam iyo dowlad ka jirtaa la aadaa oo la higsadaa. dowladda Soomaaliya waa la kabyo isaaray, waa dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka. haddii odaygii u qaldamay, maskax keligiisa ay noqotay, keligii uu noqday, taladii dalka maroorsaday, waqtigiisu gabagaba yahay, dhalinyarada ciidanka qalabka sida Soomaaliya waxaan leeyahay isu dhiiba ciidamada dowladda koonfur galbeed. naftiinna iyo maalkiinnaba waa ka xaaraan, adinkuna ha banaysanin. odayga waqtigiisa waa dhammaaday, xasan xilli la taageeray waa dhammaatay. hooyaa ku dhashay, dal baa lagu soo tababaray, inaad noolaataad rabtaa, isdhiiba. dhalinyarada inta badanna waa la hadalna Gorgor, waana u sheegnay, haddana fiidiyoogan gaarsiiye. walaalkaa ha dilin, dadkaaga ha barakicin. dadkii Baydhabo joogo ee reer koonfur galbeed iyo dowladda koonfur galbeed oo dadka u soo dhaarateen, waa dadka kitaabka u marteen. nin qaswada ah, keligii taliye ah, keligii talada dalka maruuqsaday yuu isan idin haadaan in ka ridin, nafahiinana ha ku qamaarina. meeshaan nyaxaas baa afka saa u kala qaaday, wallahi inaan beri idin sheegin, waa idin degayaa. anigu qabiir baana geeska Afrika arrimaha military and sanitary-ka oo arrimaha militariga aad u yaqaano, garanayna dowladda Itoobiya waxa ay rabto, waxa qiimaha ay u leedahay magaalada Baydhabo, qiimaha ay u leedahay koonfur galbeed, qiimaha ay u leedahay gobolka Gado, qiimaha ay u leedahay gobolka Jubbaland. amnigeeda qowmiga ka ilaalsataa
adikoo dhubuq le intaad soo gashaan inaad magaalada ku nabadgelaysaan ha aaminin niyadiinna ha geliyaa been laydin sheegin waa wallaahi waa billaahi waa tallaahi afli waxbaad gelaysaan haddiidnan ka waantoobin oo aadnan iska ilaalin oo aadnan hadda isu dhiibin waayo dalka dowladda saxda ee maanta jirto waa dowladda koonfur galbeed cabdicasiis hogaaminaya dalkii odayga waa ku ciyaaray isdhiibaan ley dhalinyaro intaasaan ley saayidow caabudoq waa ka timid nin mareexaanaad tahay nin weerdhacaad tahay wiilkii talada kaaga horreeyey ciidanka gaarka xukumay dhulbahante ee jaamac siyaad ee xasan cadde waa diiday waana iscasilay waa diiday inuu raas kambooni aado waa diiday inuu baydhabo aado waana ka tegay xerada waa sargaal qiimihiisa leh dalka soomaaliyeed u abaalgudi doono adigu maanta reer koonfur galbeed iyo shacbigeeda inaad weerarto wax danoo kugu jirta ma lehe arrintaasi ka waantow isdhiib baan ku leeyahay isu dhiib dowladda koonfur galbeed asaga intaasaan kaga gudbayaa waxaan usoo gudbayaa dadka reer koonfur galbeed aad iyo aad baad horta maanta u muujiseen shucuurtiinnii isku soo bixiinnii ogaada waxa loo socdo waxa la raba in laydin gumeeyaa la rabaa waxa ay puntland loogu dhici waaye fiiri puntland baa xasan sheekh maxamuud weerar ku qaaday lacaguu ku bixiyey wiilal nashra abgaal iyo ciise maxamuuduhu fuulay lacaguu u dhiibtay puntland 20 iyo waxay jirtaa 4 sane 24 ku burburin buu yiri dhag jalaq waa loo siin waa doorashada waa la qabsaday wiilashii uu dirsado barxadda jijiifo boo barxaddan jijiifnaa maanta xamar bay barakac ku yiri waa nashra abgaal waa guuleed waa ninka la yiraahdo muxuu ahaa cali xoosh maanta halkaasay barakac ku yihiin dalkooda sharaf kuma laha degaankoodana sharaf kuma laha qabiilkoodana sharaf kuma laha digil iyo milif oo u horreeyey federaal soomaaliya la aasaaso in maanta la yidhaahdo ogaadeen waa ka soo baqnay majeerteenna waa ka soo baqnay adinkaa maskiina miska la fuula leh in laydin yidhaahdo ma samaysan kartaan dastuurka wuxuu idin siiyey gabdhihiinna guur la'aan ha tirina dadkiinna ha gumaynina jeeshiinna soo hara ha gumaynina waad u jeeddaan waxa inku dhacay maanta muxuu taliya shub u xidhan yahay taliya shub wuxuu afduwan yahay lafta gareen baa soddog u tahay wax kale ma ah dambi ma gelin sarkaal dalka si fiican uu soo shaqeeyey xabad xaduudda ka soo bilaabay bakool xoreeyey bay xoreeyey shabeellada hoose xoreeyey intaa u talinaa qaranka waqtigiisa badan geliyay dowladnimada soomaaliyeed ayaa wuxuu xirayaa nin xasan sheekh maxamuud liyaad haddaad wax garanaysaan arrintaasi ka dhidhii waaba ka dhidhideen doorashadiina la qabsada puntland kama liidataan maxamuud salaam baa ka liidataan maraa cabdulla ogaadana ka liidataan horgallada hala dilo qatalo alxabash qaablo alxanash insha allahu koonfur galbeedna waa guulaysanaysaa weelashii dhaga adeega ee isdhiibi waayane gacanta ciidamada koonfur galbeed ee mujaahidiinta new rre ayay ku bixi doonaan haddii aad rabtaan sidii ciise maxamuud kuwaan waxaan la hadlayaa meesha taagan sidii weelasha ciise maxamuud ee u dulloobeen ee dadkooda u naceen ee xasan dabada ugu dhiibteen u dhiibataan haddaad rabtaanne gulnimada qaata haddii kalena maanta toobada idin furta toobad keena wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu